nin la yiraahdo Alex ayaa nolosha dhibsaday kadib walaac iyo walbahaar iyo dhibaatada adduunka markuu xamili waayay wuxuu go'aansaday inuu isdilo oo iska soo tuuro dabaqii uu deganaa laakiin shabaq badbaado ayaa dabaqa qaybta hoose oo dhan ku hareereysnaa laakiin Alex maanu ogeyn arrinkaas dabaqa qaybta ugu sareeday kor ayuu fuulay wuuna iska soo tuuray intii uu soo socday ayaa waxa ku dhacday xabad inta aanu gaarin shabaqii badbaadadana wuu dhintay sidaas ayaa naftii kaga baxday booliskii iyo dambaarisi markay yimaadeen waxay xaqiijiyeen in Alex uu u dhintay xabad ku dhacday intii uu hawada ku jiray markii arrinka ay si fiican u xaqiijiyeen ayaa waxay ogaadeen in nin da' uu degan yahay dabaq ka soo horjeeda dabaqii uu Alex iska soo tuuray wuu xanaaqsanaa wuxuu la dagaalayay xaaskiisa oo ciyaar uu daawanayay ka badbadaleeday si kaftan ah waxay ku badbadaleeday barnaamij ama application mobilka laga isticmaalo oo lagu bedeli karo TV-ga wuu xanaaqay xabad ayuuna ku soo riday laakiin xabadii maynan ku dhicin islaantii ee waxay ku dhacday Alex intii uu hawada ku sii jiray waxa la yaab lahayd oo ay sii ogaadeen dambaarisi in sida caadada ah baaskoolada ay eber ahaan jirtay odaygana uu mar walba xaaskiisa ku cabsiin jiray si kaftan ah laakiin markan wiilkiisa ayaa baaskoolada raaciyay xabada sababtoo ah caasi waalideen aabihiis iyo hooyadiis necab ayuu ahaa wuxuuna rabay in uu hal dhagax laba shimbir ku dilo hooyadiis uu dilo aabihiisna dambiga dusha looga tuuro su'aasha isweydiinta leh ayaa ah ninka Alex ah ma dambi dil baa loo geystay mise isagaa isdilay haddii la dilayse waa ayo dilaaga ma aabaha mise wiilka intaas ayaan ku soo koobaynaa videogeena maanta oo walaalkiin Maxamed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.